qaran wuxuu ahaa tartanka ciyaaraha jaamacadaha Soomaaliya waxa ku mataleysay sida ay noo sheegeen qolihii maxay la hawshaas soo abaabulay gabar u tartamaysay mid kamid ah jaamacadaha dalka sida aan xogta ay nagu siiyeen walow aan baaritaan badan sii sameyn doono runtii waxa meesha ka dhacay horta nam ciyaarta meesha ka dhacday waxay ciyaar oo aan heer qaran ahayn heer jaamacadeed ahayd intaas kadib Soomaaliya waxa uu qayb galay sida aad aragteen baraha bulshada ama dadka ay wada arkeen ama inta badan inuu soo address gareynayaan gabadha kaliya ee xogaa negative-ka game-ka ka soo noqotay laakiin waxa jirta dhanka kale inaan u hambaliyeyno wiil aad u dadaalay ciyaaryahan heer qaran ciyaaryahanada ku tababarto xulkeena qaranka ee orodada u tababartay ku xareysan magaalada Addis Ababa ciyaaryahan Ido kaasoo ciyaarta wareegii koowaadna kaalinta afraad ka galay natiijo fiican keenay una gudbay hadda wareegiisa labaad waxaa leenahay ciyaaryahan Ido hambaliyo sidoo kale waxaan u hambaliyeynaynaa ayadan hambaliyo leenahay gabadha dadaashay ee meesha tagtay ciyaartaas inay ka qayb gasho ku dhiiratay laakiin sida ay ku tagtay ama sifada ay ku soo mataqaana ciyaarahaas lagu xulay ay ahayn sifa ay wasaaradda ogeed waxaan rabaa inaan clarification yar u laabto wasaaraddu anaga hadda maamulka cusub intaan joogno waa 11 bilood xukuumaddan hadda aan ka tirsanahay dan qaran 11 bilood aan joognay waxaan inta badan aan xooga saareynay wada shaqeynta iyo sidaan ku xoojin lahayn xiriirada kala duwan ee dalka ka shaqeeya iyo hay'adda Olombikada ama guddiga Olombikada qaranka Soomaaliyeed annagu waxaan doorka mar walba saareynay marka xiriiradu inaan roolkooda siino roolka wasaaraddan aan ugu sheegaynay laakiin inta badan waxaa dhacaysay markaan xoogaa iftiimiyo sida ay ku baxdo kala hadda tusaale wasaaraddu inta badan waxaan lagu casuumi jiray ama nalaga wici jiray dhaqan soo jireen ahaa ee u sameysnaa xiriirada ahaa inay ayagu soo xulaan siday doonaanba ha ku soo xulaan ay kadibna wasaaraddu dhahaan waxaa baxayo ciyaaryahan fulaan meel fulaan u baxaa kaliya ogeysiinta ugu dambeysay amba baxa amba maxaa la dhahaa lagu soo wargeliyay qofka sagootinta kulanka sagootinta sidaad arkayseen kulanka sagootinta ayaa wasaaradda inta badan lagu soo mataqaana cazuma ciyaaryahanada ama markii ay baxayaan team xagga dibadda aaday laakiin xaqiiqdii waxay tahay kalsooni waxaan ku qabnaa ama kalsooni badan siineen xiriirada bacdama ay muddadii gaabka ee dowladnimadii jirtay ay kasoo shaqeynayaan howlahan ay ayagu usoo dhabar adeegeen ayagan waxaan ku kalsooneen wixii iyo qaabka ay wax usoo xulayeen laakiin waxa maanta dhacay marka la fiiriyo wax ma ahayn munaasab ku ahaa dadka Soomaaliyeed wax ma ahayn munaasab ku ah ummadda Soomaaliyeed in loo soo bandhigo ama ay arkaan runtii ka wasaarad ahaan aadaan uga xunnahay waan ka raali gelinaynaa bulshada Soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa wadiifada ay mataqaana waxaas ku dhaceen inay wasaaraddu wax rool ku lahayn qaabkii hanaanka lagu soo xulayna aysan wax mas'uuliyad ay ku lahayn sababtoo ah qof markuu ciyaaryahan heer caalami aadayo ama markuu aadayo qaran waxa sax ah marka hore inuu ku soo baxo qualified-ka ama tartanka tusaale hadda tartanka gabadhu ay ka qayb gashay tartanka jaamacadaha ahaa ka dhacay dalka China tartanka jaamacadaha qofka dibadda aadaya ee wadan ku matalayo ee safar ka baxsan gudaha waxa fiicneed in marka hore jaamacadaha ama sida saxda munaasabka inay jaamacaduhu ururka jaamacadaha soo tartamaan ardayda jaamacadaha la tartansiyo qofka ku guuleysta tartanka localka maxalliga ah loo overgareeyo ama loo qaado dibadda sida saxasaas ahayd laakiin waxaan hadda meesha ka aragnay wax ma ahan munaasabadaas ay lahayd xiriir markaan la sameynay ururada jaamacadahana waxay noo sheegeen inaysan waxba aysan kala socon waxa meesha ka dhacana aysan ahayn wax ka warqabaan marka waxaan rabaa inaan u soo laabno gunaanadkii arinta meesha ka dhacday ah foolxumada badneed magaca Soomaaliyeed meel uusan istaahilin ama calanka Soomaaliyeed meel aysan munaasab ku ahayn in la dhigo ama sifo aanan habooneen mas'uuliyadaas cid qaaday ama cid waxaas ka soo shaqeysay waxaan ka wasaarad ahaan haduu la yiraahdo aan sameyn doonaa dabagal iyo maxaa la dhahaa la xisaabtan waxaan hubinaynaa haduu la yiraahdo waxaan sida lagu soo xulay sida ku dhaceen runtii ma ahayn waxaan anaga aad ugu faraxsaneen intaas markaan ugu gudbo arinta ah haday ciyaartooy dibadda aadeyso ama ay ciyaaryahan individual ciyaaryahanada ama xulalkeena qaranka ama
xiriiradeen way kala duwan yihiin waxaa jiro individual waxaa jiro kooxo si kastay noqoto waxaan rabaa inaan halkaan ka sheego caawa wasaaraddu marna raali kama noqon doonto ama ma dhici doonto inay wasaaraddu aqbasho koox ama xiriir inay dhahaan waxaan soo diyaarinay ciyaartooy waxaan soo diyaarinay koox ku matalayso xulkeena qaranka Soomaaliya dibadda safara ah waxaan rabaa halkaan caawa inaan uga faa'iideysto u sheego ma dhici doonto xiriir si iskiisa intuu wuxuu rabo iska soo walaaqa ama qofku rabo soo xusho ama liisku rabo keensado ay wasaaraddu sidaa ku anbabixis ma dhici doonto wasaaraddu roolka ay leedahay inay ka qaadato xiriiradana rool ay leeyihiin markay timaado national ama heer qaran ama ciyaaryahan dibadda loo diraayo wasaaraddu waxay leedahay korjoogteen waxay kaloo wasaaraddu leedahay wax la yiraahdo maxay tole inay ogaato nidaamka iyo barsiiska ku soo baxay qofkaas waxaan rabaa marka inaan halkaan uga faa'iideysto xiriirada kala duwan ee dalka inay ka digtoonaadaan sida aan munaasibka ahayn ciyaartooyda ay ku soo xulayaan waxaan rabnaa inaan uga digno xiriirka sifooyinkaas ama waxaasi ku kaca ama ku dhaqma inaan dib u fiirin doono sharciyadiisa iyo shaqooyinka wada shaqeynta ee la leedahay wasaaradda waxaan dib u fiirin doonaa jiritaankiisa xiriir ahaan maxaa yeele marna raali ma ka noqon doono sharafka iyo calanka ummadda Soomaaliyeed meelaan munaasib ahayn in si aan munaasib ahayn loo geeyo waxaan rabaa inaan arrinkaasi aan cod dheer uga digo xiriirada kala duwan ee arrimahaasi gacanta ku hayo waxaan rabnaa qof kasto ee hool qaran hayo in wasaaradda la soo xiriiro wasaaradduna ay rool ku lahaato korjoogteynta nidaamka qaabka ay ku imaanayaan aan la soconno kadibna aan u fududeyno markaan xaqiijino inuu ciyaaryahan qaran ka soo bixi karo quality ahaan inaan u fududeyno waxaan rabaa inaan arrintaas aan aad u cadeyno aan ku kala fikireen waa mahadsantihiin